Deexa culus cali aadan muumin iyo nasteexa shaqlan oo sabab yaab leh isku furay daawadayaal halkani waa Alfa Media Group hadii aad channel ku cusub tahay subscribe saaro si aad ula socoto xogaha aan baahino horaantii bishii May ayay ahayd markii uu baraha bulshada qabsaday video ay faafisay gabar uu qabay cali aadan muumin kadib markii ay WhatsApp-kiisa kala baxday fiidiyoyo ay u soo dirtay nasteexa shaqlan oo ahayd naag la qabo nasteexo waxa qabay wiil lagu magacaabo Cabdifataax Injey fiidiyowga ay u soo duubtay cali aadan nashayda farxadeeda maankeeyo cawsaxana kula hadlay kunigoo jariiraan noqo maani farxadeeda tahay waan ku jeclahay farxadeedu noolo wallahi ka xafido intaas hawshu kuma ekaane saacado kadib xaaskii cali aadan muumin ayaa soo gelisay fiidiyow kale oo ka sii darankii hore معان علي فهمينو hadal hayntii waa ay badatay dadka qaar oo nasteexa u ceeb qarinaya ayaa yiri waa wax hore balse waxa yaab iyo amakaag noqotay markii ay xaaskii cali aadan ay soo gelisay fiidiyow ay gabadhu ku sheegayso oo ay leedahay cali soonka markii laga baxo ayaa noo balan ah taas oo run ka dhigtay in fiidiyowga la duubay isla bishii soonqaad maadaama lagu jiray bishii soonka معان علي وينو بعد رمضان الفيديو يكله قروح بدن كوان واسوت فهمينو يا عشان بركده ده إلى خير كذا نواقجيو نبغى هيسكو كاي كينو arinta ayaa gaartay heer oo Injey ka soo hadlo fiidiyowga ay duubtay xaaskiisa una duubtay wiil kale waxa uu sheegay in uu isagu qabo waa tanaa doodii dhex martay Cabdifataax Injey iyo wiil la dhashtay nasteexa shaqlan maya labada dalaaq hadda labada dalaaq marka ku furtay sheegaysa labada dalaaq waxay sanadkii hore ee dhaxdiis waa April 12 ka sheegayso oo Friday-da waa halka dalaaq labada dalaaqna way horeysay labada dalaaqna way ka sii horeysay dalaaq meeshaas marka soo saddex dalaaq ma markuu halkay hadda labada dalaaq hore ay hal dalaaq hadda sheegaysa ma hadda dhahda Soomaaliya labada dalaaq way horeysay hal dalaaqna way dambeysay dhahda ayada waxay dhooysaa oo xisaabsan labada dalaaqna iftaa hore ugu furay hadda dalaaqadu okay adi marka labada dalaaq hore ugu furto waxa uu xisaabsata hal dalaaqo iyo dalaaqadan hadda laba ka dhigatay ayadana labadii hore xisaabsanaysa iyo halka dambe saddex ka dhigatay adigana labadii hore hal ka dhigatay arrinku intaa kuma ekaane nasteexa oo ka xanaaqday in ninkeeda soo hadlo ee uu arintan ka hadlo ayaa soo dhigtay fiidiyow oo iyada u soo duubay markii ay isguursan rabeen kaasoo u muuqday min uu ku beer la xawsanayay iyadoo waa kan fiidiyowga oo u soo duubay والله يا بنات ما كانوا مثلي ما كانوا واحد بروبلم في القصة بيحضرن كرنا وصل ما يقولون خير أقول بوا كابو يطلب كستوى إلى الغاب يخلد مثلا نبيت واحد كابو وفوض أمري إلى الله رجلي إله وبك لكن والله والي التوغل قفكي أما يعني هو ذاك ما قفكي إله وقود الشيء كل سلاح ونظر مثل قوضة من كده تقضي الفرق معايا أليس مرة أحي تلعب كم واحد أسمعي ما كان laakiin intii markaa ka dhigayay markaa gurbaha isticmaal leh intii meeshaan rooyla ugu dhiibay maamada isbitaal iska gashay day la soo hadashay waxay tiri waxa waaye riya aan bixinayaa isbitaal aan ugu galay wallahi wanda weerada daawan u baahanahay ma la caddaado أحدث أوزوك على سحر أنا هذا ما عليك كيف أكون باللوبين وحب ما حد يجارك من الريو كيس من الجواح ما يكون كل ذي نجربه
raashin laga rabo 2 bilood oo aan kiriseen wax badan oo ilaa hadda waxay iga sugayaan aniga waxna aan siin waa bilow aan ku dhigto Israel oo qorwaana ka baxay insha Allah waa sii qaraaraatay bahashu oo injay oo ka fal celinaya fiidiyowga asaga oo ooyay ay soo gelisay nasteexo ayuu soo dhigay fiidiyow ay u soo duubtay asaga intii ay isqabeen واو يا معاكي يا عاوز بدل مجدد قرية هو كم أروس يا السجاهي يا السجا بتخانة حاجكي كإنتي حكي يا صواي تمرتي يا تونكي وعشاق nasteexo oo ka dabaaqaysa ficilka injay ayaa u duushay muqdisho si ay u guursato cali aadan muumin oo dartiis loo furay balse cali ayaa asaguna go'aansaday oo iska furay xaaskiisii faafisay fiidiyowyadii fadeexada ahaa wuxuuna guursaday nasteexo oo aan cudadii dhammaysan balse waxaa 3 bil kadib isfuray maantay cali aadan muumin iyo nasteexa shaqlan oo aan xitaa dhammaysan wali cudadii oo injay ku furay sababta ay isku fureen ayaa lagu macneeyay in nasteexo ay u caqli celiyeen wiilal la dhashay isla markaana u sheegeen in uu xaaraan ku qabo ee uu guursaday iyada oo aan cudadii dhammaystan nasteexo oo u muuqatay mid garwaaqsatay ama ogaatay in ay mustaqbal mugdi ah ku jirto ayaa cali ka codsatay in uu furo sidaas ayayna isku fureen daawadayaal halka aad xogtan ka daawanayseen waa Alfa Media Group haddii aad channel ku cusub tahay subscribe saaro si aad ula socoto xogaha aan baahino mahadsanidin